السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين سود أوادا وولاشين وبحين موسى ومركلته سوق الشيء سيدا وذي أقنا هاي دونيدا وحافرات كل كوهيا عذر كان كورونا فيروس كليرادو كورونا فيروس إن شاء الله تعالى مربى صيفي عن وصوحات لدونا ساعدها صوص عدا لكن وحيابها أن ليابي وهدان هاي صومالي هدان هاي ضد مسلمين weli waxaan la yaabanahay quraafaadka aan aaminsanahay oo aan weli micnihii kaga sheekeynayno arrimaha corona marka aan meelo badan aan maray oo baraha bulshada kamid ah waxaan arkay dad waxyaabo aad moodid been abuur inay yihiin kulay anaga ila muuqdeen inay been abuur yihiin ka sheekeynaya sida in la leeyahay kitaabka guriga ku yaalo kala fur hadaad ku aragtid tin kitaabka ku dhex jira waxyaabo noocaas oo kale ah gabar kasta iyo wiil kasta oo kitaab quraan guriga u yaalo kitaabka quraanka markaan isticmaalayno waxyaabo badan oo xasharaada ama timaheena ama dabayl ama dun ama wax noocaas oo kale ah way galayaan shay kasto la isticmaalayo saxar uu yeelanayaa laakiin maxaa keenay in laga faa'iideysto arrimahan horta waxa corona bilowday ma aha weligeed ay jireen oo Soomaali badan ayaa weligeed yaaleed wax mucjiso markay arkaan waxay ahaan kitaabka kala furtin hadii ku jirto wax noocaas oo kale taa walaalayaal waxaan leeyahay quraafaadkaas ka digtoonaada ha ku kadsoomina waxa taa iiga sii darnaa oo aan la yaabay oo aan arkay waxay ahayd marka nin weyn oo Soomaaliya jooga uu yiraahday cunug yar oo dhashay ayaa hadlay ma wax la yaabo ma waysan ahayn cunug yar oo dhashay ayaa intuu hadlay ayuu wuxuu yiri sheeko dheer ayuu galay ilaahay agtiisa waxba kama aha ciduu doono ka hadalsiyaa nabiyullaahi ciisaaba allah wuu ka hadalsiiyay isagoo sabi ah waynu ognahay taas shaki kuma jiro laakiin dadka maantay beenta faafinaya waxaan oran lahaa ka fiirsada beenta noocaas oo kale taa wuxuu doono allah sameeyaa laakiin quraafaadka noocaas oo kale ah walaalayaal yaa lagu kadsoomin in cunug yar uu yiri muslimiinta kuma dhacaan corona iyo shaah qaraara laba jeer hal ka bado wax noocaas oo kale ah waa wax aqliga bini aadamka aan galaynin kaaga darana wuxuu yiri markii uu cunugu inta yiri hadiibana uu geeriyooday wal billah hadday arrinkaas run yihiin maba ahane hadday run tahay muxuu cadeyna oo uu hayaa waxa soo kale walaalayaalow waa fidno kamid ah fidnooyinka dunida cudurku muslim iyo gaal midna ma lahan kansarku muslim iyo gaal male AIDS muslim iyo gaal male maxay yiraahdaa coronadan virusyadan hadda wada socdo dhan muslim iyo gaal male rabbi qofku ugu tala galay ayay ku dhacayaan qofka alla ka badbaadina waa ka badbaadmayaan laakiin mar walba ogow geeridu waa xaq yaani kor iyo hoos geeridu waa tiina taabato laakiin quraafaadka dadka masaakiimiinta ah ee aan diinta sida fiican u aqoonin marar badan baa waxaan ku arkaa facebookyada kuwa leh intay micnihii waxyaabo photoshop ah intay soo galiyaan bay waxay ku leeyihiin Allahu akbar soo qor سبحان الله سوقر كسل للنبي صلى الله عليه وسلم انت بوا wax fiican in la sameeyo inta in adkaarta la akhristo in nabiyullah muhammad sallallahu alayhi wasallam lagu saliyo inta waa wax anaga dan noogu jirta waa wax anaga ajirkeena kor u qaadaya ajir aan ku helayno laakiin in loo isticmaalo waxyaabo ku tiri ku teena waxyaabo la yaabo deena waxaan warkaas waxa jees diinta inaan barano waa inuu waajib gabdhow hadaad ku aragtaan meelo la leeyahay nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam ku saliya iyo Allahu akbar soo qor oo quraafaada oo aad aragtay inay photoshop yihiin wax micnihi Allah subhanahu wa ta'ala micnihi meel ka dhac looga dhigay waxyaabahaas oo kale walaalayaal ka digtoonaada iban hadaartay xataa afka ka aha idinkoon soo qorin dadkaas commentiyo iyo share iyo waxyaabahaas kaliya waxay rabaan page-kooda in lagu faafiyo comments bay rabaan ha ku kadsoomina diinta aynu baranno waxa afka ka dheh Allahu akbar ta afka ka dheh subhanallah afka ka dheh
maalin walbaana loo kaga baahan yahay inaan guryaheena anagoo joogno iyo dibadda anagoo marayna inaan dhahno khuraafaadka marka maanta loo adeegsanayo coronaviruska ee la leeyahay muslimku ma dhimanayaan walaalayaalow taxadara muslim wuu ku dhiman doonaa wuuna ku dhimanayaa kuwa soo socdana way ku dhiman doonaan wuuna wada taabanayaa waan nagu dhici doontaa waan ka badbaadi karnaa marka sidaa daraadeed waxyaabahan aniga kullaytaba waxaan is-iri يعني مرة بدان مركان أكيد أو أن كل جي يعني جذها كجبتي واحد يصير ولا لها أرن كان لقيب صو محايا لو واحد لوط القاعدة كرا معها واحد اللي هي إنه جربا أنت هاي أشمرك ناس كلوط يجي لها بو أرن كاسيري أو وحو يري بكير الشاهة لابد شركة بضع شاه قرار يوحو يري مع قاني وروحاس وقرافات إلهي هلا جبقو dadkiinaan maskaxdooda lagu ciyaarayana ha ka digtoonaadaan waxaasoo kalena yaan la faafinin maalin walba luuqaa lagugu soo dirayaa waxyaaba noocaasoo kaleetoo taleefoonadii naga buuxiyey waxaasoo kale yaan la sheergaraynin ha laga digtoonaado waa fitno adkaarta badsada adkaarta akhrista ilaahay barya mar walba ilaahay wuxuu idin yidhi ibarya waa idinka aqbalayaa waa idinka ajiibayaa goonidiina u barya ilaahay iyo adiga laynima kala dhexeeyo marka kullaytaba arrimahaas way gubeen way dhibeen waxaan isir walaalaha u faa'iidee waxaan micnihii indhaha ha fureen kuwa badan fidno badan oo soo socotana ka digtoonaada waxaan idin leeyahay insha allah waxaan soo gelin doonaa arrimo karownadan iyo ku saabsan biidni illaahi kariim aynu taxadarno marka intaasaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu